dabla xooga dalka Cabdi Waayeel Macalin Aadan Kennedy iyo dabla xooga dalka Dayax Nuur Cabdi Aadan ayaa loo haystaa dilka Allah u naxariistay Zakariya iyo Sawda Maxamuud Xuseen oo wada dhashay dilkaasi oo ka dhacay isgoyska dabka fiidnimadii Khamiista 2 bishan. haddaba aan idin la wadaaga ka hor weydiimaha iyo jawaabaha maragyada ee xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida hor keeneen garsoorayaasha muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee ciidamada amniga CCTV. Allah u naxariistay Zakariya ayaa telefoonkiisa gaarka ku duubay muuqaalka qof jidbaysan oo taageeranimada biyo dhigatay Snapchat. laakiin daqiiqada kadib wax walba way isbedeleen taxadar la'aanta Cabdi Waayeel ee ka dhalatay kale erida dadka darteed isagoo isticmaalayo awoodda ay dowladnimadu u siisay inuu adeego. bal daawo sida ka fiirsasho la'aanta leh ee sabab ugu noqday ilinta walaalo iyo waalid mar qura waayay wiil iyo gabar gaaray xilliga ay wax tari lahaayeen naftooda waalidkoodii inta kale. ma aha kaliya in tallaabadiisii xumeed ay ku dhamaatay dilka Zakariya iyo Sawda, waxa uu sidoo kale filatuur iyo rasaas wili ku dudaya dad lugeynayo iyo gaadiidka kale sida bajaajta. xeer ilaaliye Maxamed Cabdullaahi Khaliif ayaa la wadaagay maxkamadda ficilada isxigxigay ee ka baxsan habdhaqanka askariga ee ku xusan xeerarkii loo jideeyay. asoo yaqaano qaabkii loo isticmaalo hubka, asigoo yaqaano dishibliinka ciidanka, isagoo yaqaano in goobta ay tahay goob dadweyne, goob shacab aan loogu talgalin in xabad laga rido, ayuu wuxuu isticmaalay xabadii koobaad oo ay ku dhacday labada marxuum oo aysan filaynin inuu dili doono. sidoo kale xabadii labaad ayuu hadan dhankan kale u ridayaa, wili taagtaaga ayuu ku jiraa. wadihii bajaajto aan war u haynin waxa dhacay xilligaasi ayay maxkamadda wax ka weydiisay habeenkaasi ogaalkiisa. degmadu waa bari ka imaanay waxa uu soconay maqaayad la laag an share meesha waxaan oo qofsaday jaamira galnay faant marka anaga jaamki ku jirno dhagax meesha yaalo agaariisa askula sineen faant marka xabadaha dhaceen marka xabadii markay dhaceen dadkii aan aawaday waxa dareemay gadaasheeda inay nash markaas mootadii waxay leedahay dhaxa ka fiiriyay wiilkii waayay gabadhiin saasay u dhacday faant marka saasay u dhacday markaas awaaqeeliyay ka bacdi mootadii wiil igu horeeyay waxay sheegeen in mootada aan wada dhaawac saas dadada ali furwada waa la cararay waxa isbitaal ku yaala Xaaji Baasto. askari la socday labada eedeysane ee mid traafika ayaa ka mid ahaa dadka ku xusan liiska maragyada ee maxkamadda hor keeneen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida. dabla Axmed Maxamed Cabdiraxmaan oo u jawaabay dhinacyada dacwadda ayaa shaki badan ka muujiyay mid ka mid ah xabadihii ay rideen saaxiibadiisa shaqada kala dhaxaysay. xabadda kolle horta aniga horta uma jeedin, laakiin waxoogaadii shaka ay gelisani daacad naftiida ahaan. CID-da qaybteeda shaybaarka cilmiyeysan ee Forensic Lab ayaa iyana ka jawaabaysa haddii ay ka dhaceen xabado qoryaha eedeysanayaasha ay leeyihiin iyo sumadda akhrintiisu ekaanshiyaha qoriga iyo fooqyadii la helay. leebka iyo bahalkaas soo tuuraya ejectorka la yiraahdo iyo extractor bahal la yiraahdo iyo calaamad kale oo kan la yiraahdo bolt face-ka waxyaabahaas oo dhan calaamadahay ku sameynayaan. calaamadahaas marka yaani uu qoriga ku sameeyay iyo calaamadihii kuwii crime scene-ka laga keenay calaamadaha ku yaala waa la isu fiirinayaa, isbarbardhiga lagu sameynayaa. haddii marka sidaas marka waxaan ku helaynaa cadaynta oo buuxda in maaragtay xabaduhu qorigan ka dhaceen. gaashaan Muumin Xuseen Cabdullaahi xeer ilaaliye ku xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in loo ciqaabo Cabdi Waayeel Macalin Aadan Kennedy dilku geystay halka Dayax Nuur Cabdi Aadan lagu xukumo ciqaab u dhiganta anshaxa wada marista iyo nabadgelyada guud ee uu qalqal geliyay. waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo buuxa oo dhameystiran oo cadeynaya qodobka 434 kuwaasoo sugaya dhammaan in uu mas'uul ka yahay dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacab dhexdooda oo xabadda isticmaalay. waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedeysane Cabdi Waayeel ku xukunto ciqaabta oo mudan yahay oo ah dil
si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee mataqaanaa suuragal ay tahay inay shacabka dhexdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedaysanaha labaadna aan codsanayno eedaan u soo jeedinay mataqaanaa xeerka nabadgelyada guud inay maxkamadda ku ciqaabtaan codsanayna isagana abukaata warsame ayaa isagana u arka muwakkiliinta uu difaacayo inay gudanayeen waajibaad qaran oo ahaa kala fududeynta isu socodka dadweynaha balse abukaata Ismaaciil xalana waxa uu qabaabay in gebi ahaanba xorriyadooda la siiyo labada eedaysane marka taas waxa cadeynaysaa qodobka hadda lagu eeday oo heer ilaalinta ku soo gebgabaysay in aan qabanaynin sababtoo ah dadweynaha ayaa shaqo u hayeen shaqadii mishaar ku qaadanayeen mid kale dheeri ka ah ayaa waxa u gudanayeen si ihsaan ah oo tabarruc ah culayska cadeynta ee xaqiiqda gaarka ah wuxuu saaran yahay dhinaca doonayo in jiritaanka dembiga laga rumaysto maxkamadda inay ka rumaysato xafiisku saaran yahay jiritaanka dembiga in la rumaysto si lagu rumaysana si clear ah oo banaanka yahay maadaama aysan dhicin maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in eedeysanayaasha xorriyadoodii la siiyo fadhiga waxaa goobjoog u ahaa daneeyayaasha kiiskan ee dhinacyada dacwadda sida eedeysanayaasha iyo dhibanayaasha waxaa sidoo kale halkan jooga cutubyo ka tirsan goorgoor oo iyana looga dhigayay tusaale kuwa iyaga ka tirsanaa qaladkii ay galeen haddii mid lamid ay la yimaadaana loo ciqaabi doono gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badan qaatay dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanayaal cabdiwaayeel macalin aadan cilmi iyo dayax nuur cabdi aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran yahay cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho.